Dadku isku mid maahe, Ilaahay qofba si gooni ah ayuu u abuuray oo wuxuu siiyey dabeecad kala gooni ah. Soomaalidu waxay dhahdaa dadka waa shanta farood oo kale. Ma jirto far kale la mid ah. Qof kaste wuxuu leeyahay fikir iyo aragti u gooni ah, dareen u gooni ah, dabeecad iyo la dhaqan u gaar ah. Waxaa jira dad carqalad ku noqon kara yoolka inaad gaarto aad adigu damacsan tahay. Fadlan inta aanan gudagelin ka mid noqo asxaabta ku xiran Wanaag Show ee subscribe inoo saar. Waxaan kuu soo gudbin doonaa Noocyada dadka ee riyadaada ama himiladaada yoolkaaga kaa hor istaagi kara. Dadkaas oo mudan inaad Ilaahay ka magan gasho oo riyadaadana ka qarsato. 1. Anaa gaari waaye, adina gaari maysid. Qofkani waa qofka isku dayay ama si run ah ha isugu dayo ama si imoodmooti ah ha isugu dayo oo haddana ku guul daraystay inuu helo natiijada uu rabay. Qofkani waxaa ka dhaadhacsan in maadaama uu isagu gaari waaye oo ku guul daraystay inuu helo riyadiisa, qofka kale oo adduunkan saaran inuu samayn karin oo ku guuleysan karin waxa uu isagu kusoo guul daraystay. Qofkani ma fahansana wax walba inay qadar yihiin, Ilaahayna qofba wax u qoondeeyay. Qofkani ma fahansana in qof kasta awood gooni ah leedahay oo weliba marxalado kala duwan ay ku xeeran yihiin. Waxaa laga yaabaa qofkani wax ka maqnaa oo ka hor istaagay hanashada hamigiisa aanay adigu kaa hor istaagin. Marka aad qofkan riyadaada la wadaagto oo kugu yiraahdo gaari maysid, isaga oo sababeysanaya inuu isaga naftiisa isku dayay gaari waayay, xasuuso labadan arrimood. Qofkani cilmu qeybka waxba kama oga, hadalkiisuna waa hadal uu iska yiri, ayaa hadalkiisu riyadaada kaa hor istaagin. Qofkan iyo adiga isku mid ma tihiin. Laba qof oo kala duwan ayaa tihiin, kala khibrad, kala cilmi, kala caqliba intaba waad ku kala duwan tihiin. Qofkani waxaa laga yaabaa inay jireen carqalado isaga u gaar ah oo ka hor istaagay inuu gaaro heerka uu rabay. Marka waxaad eegtaa qofkani wixii hor istaagay, naftaada qiimee, kadibna dejiso wadadii aad kaga bixi lahayd wixii carqalad ah ee adigu ku hor istaagi kara. Kaanexe. Qofkani waa qofka xaasidka ee diinta lagu sheegay. Waa qofka aanan doonayn isaga maahee ummad kale inay wax kheyr ah helaan. Waa qof qumay ah oo marka aad war farxad leh ama hami aad ku riyaaqday aad u sheegto isgala ama ka xumaada. Qofkani way adag tahay sida aad ku garan karto, waayo xaasidnimadu waa cudur qalbiga ku dhaca. Dadka noocan sida ugu wanaagsan ee loola dhaqmo, maadaama aadan garan karin qofka uurkiisa waxa ku jira. 1. Ilaahay ka magan gal qofka xaasidka ah adigoo akhrisanaya suuratu Falaq. Adkaarta saxda ah. Suuratu Falaq wuxuu Ilaahay inagu dhex sheegay aayada ka mid ah wa min sharri xaasidin idaa xasad. Marka horeba ka fiirso qofka aadan hankaaga iyo himiladaada ama yoolkaaga aad la wadaagayso. Dadkoo dhan gacal kuma aha. Dadka qalbiga ka buka oo xaasidka ah ayaa jira. Qofka aad ku kalsoon tahay oo aad og tahay in riyadaada iyo himiladaada wax u dhimeynin maahee, qofka kale waxba hala wadaagin. Ku liide. Dadka noocan waxaa jira dadka dad liida, niyadana ka dila, isku daya inay yareeyaan qofka awoodiisa. Dadkaasi waxaa lagu gartaa oo ay ku dhahayaan markaad himiladaada u soo bandhigato erayadan oo kale: way adag tahay inaad ku guuleysato hawshan. Maxaa kuu geeyey sidaan iyo sidaan, maba samayn kartide. Ama ka soo qabo tusaale, gabar baa tahay, ma adaa arrinkan samayn kara. Wadankan ma fahansanid ee iska daa, dadka kaa waaweyn ayaa horay u samayn waayay. Khibrad iyo lacag bay u baahan tahay, mana haysatid. Waxaan dhan oo aad sheegaysid waqti dhumis waaye ee dantaada ka raaco. Orodo waxbarasho ma aqaanee xamaalo. Qofkani wuxuu weeraraa awooddaada, waxa aad tahay ama marxaladda aad markaasi aad ku nooshahay. Qofkani wuxuu sheegayaa carqalad kaste oo ku hor istaagi karta, mid mala awaal ah iyo mid dhab ah, si uu kaaga marin habaabiyo himiladaada. Qofkani
carqaladaha uu kuu sheegayo iska hubi inay jiraan iyo inay mala awaal yihiin. Haddii ay yihiin carqalado run ah oo ay jiraan, sida uga bixi lahayd ka fikir. Waxaadse iska ilaalisaa carqaladahaasi inay niyadaada wax u dhimaan oo ay kaa leexiyaan heerka aad rabtay inaad gaarto. Ku liide qarsoon. Qofkani waa qof u dhow qofka dadka liida si siloon ama maldahan kuu liidaya. Qofkani waxaa laga yaabaa inuu isaga dhigo qof ku dhiirigelinaya siliinge. Siliinguhu waa qofka awoodda iyo kartiba kaaga dhuuqa sida siliingaha dhiigga lagu qaado. Qofkani markaste uu arko inaad wax ka fikirayso ama ficil aad sameyn rabto, wuu kaa mashquuliyaa. Qofkani wuxuu kugu mashquuliyaa waxyaalo aan micno lahayn si uu kaaga jeediyo waxa ficilka aad sameyn lahayd oo aad hadafkaaga ku gaari lahayd. Qofkan waxaa lagu gartaa markaste oo aad rabto inaad ficil ama fikir riyadaada la xiriira aad sameyso, waa uu kaa hor joogaa. Waxaa qofkan ku garan kartaa markaste oo aad tagto waxaad dareemaysaa daal, culeys dhanka jirka ah iyo maskaxdaba. Waxaad dareemaysaa sidii wax tabartii oo dhan saliinga looga dhuuqay oo waxba awood aanan lahayn. Haddaba waxaan kaaga digayaa yoolkaaga iyo hiigsigaaga yeenan kaa hor istaagin 5 nooc ee bini'aadamka ee aan kuu soo sheegay. Hamigaaga iyo riyadaada ka qarso 5 nooc ee hala wadaagin yoolkaaga. Iyagoon waxba ka ogeyn danahaaga hoosta ka wado. Haddii ay laga maarmaan noqoto inaad la wadaagtana, ka feejignaaw waxay ku leeyihiin iyo sida ay u sameynayaan awooddaada khaaska ah ee aad riyadaada ku gaari karto. Waxaase taas ka muhiimsan in aan inagu dib isu fiirino oo aan eegno bal in aan dadkaasi ka mid nahay iyo in kale. Haddii aan dadkaasi ka mid nahay, waxaa laga maarmaan ah in aan wax ka bedelno nafteena. Waxaa muhiim ah inaanan dadka ku noqon carqalad riyadooda yoolkooda ka hortaagan. Qofka muslimka ahi waa qofka dadka ka ammaan helaan oo aan dhibaato mid muuqata iyo mid qarsoon toona u geysan. Marka aynu noqono dad aanan riyada iyo himilada yoolka dadka kale ay leeyihiin aan ka hor istaagin. Aynu noqono kuwo dadka taakuleeya oo dadka dhiirigeliya oo dadka sare u qaada si ay u gaaraan himiladoodu. Selfie toastad, zoomka outlet banaanka iskagee. Love no sad, comment negative, sharka dhinacaga no sharkay. Ay haddaan soo heesa heeskayga tigisar, waxaan soo sheegay